لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت لأن أنا قريب يقول في إيلون صوتها أنا
محل آخر أيوة حاجة رحنا كنا واحد هنا ويكرا قولي حاجة حتى نقطة قربتي أردوي حلمي تربين ده حلمي نقطة وماشي بدرس بيا دقيقة طبعا كذا آخر لاب سيفتي وبيعي لاب سيفتي وطبعا وين إلى أن أنت لابك يلقى استعمال تانك كيميكاليسكا أما واحد السكودة يعطينا مثلا صدق ساينسكا نيتشوال ساينسكا وحويا ساينسكا عادية اسمها كذا ساينسكا أو كلا بحاجة فيزيكس يا بيولوجي يا كيمستري صدق أسمع لغة فيها لابك منو كلام صغير عن إكسبيرمنتس جيوغرافي وحيالها لكن أنت بدل لاب واحد ومهم سنة لغة أو من نقول يا مهم صدق لا معدو استفهم معدو هذا لاب معلش كوبان عبد وبلابيو معلش كوبان عبد وبلابيو لاب كأنه استعمال واحد الدنيا إنه أخشته لاب سيفتي واحد ما يقانو أو بدبادة لابك وحياله لابك وحياله أبو خطرة يوحياله وقف كل من كره marka waxa loogu talagalay waxyaalaha in lagu fuliyo casharkii ardaydu ay soo dhigteen practicalkoodii marka haddaan bilaabo lab safety-ga qodobka koowaad wuxuu oranayaa waxaad ka fogaataa common sense to avoid accidents ka soo noqda laga fogaanaya kaliya kama shaqeyn kartid laboratory never walk alone in the laboratory kaliya kama shaqeyn kartid ama macallinkaaga ku caawinaya ama ardayda isku groupteenu marka ka shaqeyn doontaan ardaygu ma soo geli kara laabka iyadoo aan la socon qof supervisor oo laabkan takhasus u leh oo ka caawiya sidoo isugu dari lahaa waxa uu doonayo ama experimentka uu fuliyo qof kasta oo qof kale waxyeeleeyo ku dhex waxyeeleeyo laabka qof kasta oo qof kale ku dhex waxyeeleeyo laabka waa laga saari doonaa laabka haddii qaskaana la iskama indhatiri doono hadduu soo noqnoqdana waxay noqon doontaa inaad kooraska laabka lagu qaato aad weydo qodobka afraad wuxuu odhanaya ardayda oo dhan waa inay xidhaan waxyaalaha laabka loogu talagalay oo ay ka mid tahay koorka golofyada iyo gogoliskani hor yaalla qodobka shanaad wuxuu odhanaya kabaha sanda looma soo xidhan kara laab waa in la xidhaa mar kasta boot lama ogola cagaha adoo cagaagan laabka inaad soo gasho maxaa yeelay way ku waxyeeleyn kara qodobka lixaad wuxuu odhanaya ardayda oo dhan waa inay xidhataa waa qodobkii hore la xidhiidha waa inay xidhataa arday kasta ardayda experimentka fulina soo qoriya maaha waa in arday kastoo laabkaa soo gala oo xidhaa koorarka laabka qodobka toddobaad wuxuu odhanayaa waxba laguma dhex cuni karo waxba laguma dhex cabi karo sigaarna laguma cabi karo laabka ayuu odhanaya qodobka toddobaad qodobka sideedaad wuxuu odhanayaa wax experiments la ogol yahay oo ay dawladdu ogashahay ayuunbaa lagu fulin karaa laabka qodobka sagaalaad wuxuu odhanayaa chemicalska waxaa laga saaraa laabka markaad ku dhamaysato qofna qodobka sagaalaad wuxuu odhanayaa qofna laguma casuumo laabka qodobka tobnaad wuxuu odhanayaa qof kasta oo raggu kolley hablaha ay qodobka xisaabsan qof kasta oo uur leh laabka looma ogola qof kasta oo uur leh laabka looma ogola inuu fuliyo qodobka 12aad wuxuu odhanayaa ardaygu haddii uu dhaawacmo oo haddii uu ama shil galo ama haddii uu dabdhaco waa inuu si degdeg u wargeliyaa macallinka maxay maadada wataa qodobka 12aad wuxuu odhanayaa hadduu arday meesha lagu shaqeynayo ayaa si wanaagsan loogu banaynayaa alaabtu meelayaan haddii alaabtii la soo durkeeno waxa loo isticmaalaya macnaha experimentka gelayso alaabteeda ayaa la soo diyaarsanaya
looma ogola inaad laabka la soo gasho shandad